مدحوينها جمهورية الديمقراطية فدرالك إثيوبيا دكتور ملاتو تشومي مدحوينها دولديغانka Soomaaliya Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar oo xalay cid galay magaalada Qabri Dahar ayaa ka soo kicitay Qabri Dahar waxayna ka soo dageen garoonka diyaaradaha ee Garadwil Walla waxaana halkaas si heer sare ugu soo dhaweeyay mas'uuliyiin sare oo ka mid yihiin afhayeenka baarlamaanka madaxweyne ku xigeenada golaha wasiirada mas'uuliyiin kale oo heer deegaan iyo waliba kooxaha fanka deegaanka qolka nasashada ee garoonka oo ay ku hakadeenayay ku bunayeen kadibna waxa uu soo dhaqaaqeen kulan ka dhacayay barxadda hoolka cusub ee ku dhaxyeela dhismaha cusub ee madaxtooyada ee dowladdeegaanka Soomaaliya Itoobiya iyadoo kulankan ay ka qayb galeen mas'uuliyiinta dawladda odayaasha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Dr. Mulaatu Tashome oo ka hadlay kulankan ayaa waxa uu sheegay in Soomaalida Itoobiya cadaadiskii saarnaa ee dawladihii hore ay ku hayeen uu ahaa mid ka xayuubiya xuquuqaha aadanaha iyo dimuqraadiyadda isla markaana inay ismaamulaan ay ka hayeen daawadayaal oo kaliya ayay kadib markuu isbedelku ka dhacay dalka isla markaana ay doorteen wakiiladoodii deegaanka u maamulayay ayaa kooxii nabadiidku waxay ka hor istaageen shacabka inay ka faa'iideystaan nabadii iyo dimuqraadiyadii dalka ka curatay iyadoo kooxahaas inay deegaanka ka yeelaan sabada qalalaasaha iyo rabshadaha iyadoo kooxahani ay wadeen dacayado raqiis ah oo Itoobiyaanimada shacabka ka hor imanayay isla markaana dhagax kasta u rogeynay shacabka ay ibtilayaan ይህንን የጸረ ሰላም ኃይሎች አፍራሽ ተልእኮ በመረዳትና በማጋለጥ ከክልሉ አመራር አካላት dibadana soo dhigay hamigii duminta ku dhisnaa ee nabadiidka ayaa iyagoo kaashanaya hogaaminta deegaanka iyo dawladda federaalka gaar ahaan ciidanka gaashaandhigga oo leh hadafka shacabka ayaa waxay si kama dambaysa xidida ugu siibeen oo iskaga dhex saareen kooxihii nabadiidka waxaana 5 sano la soo dhaafay shacabku sidii hore si ka xoog badan ay gacmaha isku qabsadeen inay amniga iyo xasiloonida deegaanka lagu adag ku qotomiyaan taasoo dhabaha u xaadhay in horumar sal balaaran deegaanka ka hirgalo tagu muhiimsan ay tahay in shacabku ay ka faa'iideystaan horumarkaas madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Dr. Mulaatu Tashome mar uu ka hadlayay hanaanka isbedelka iyo dib u curashada dalka ayaa waxa uu sheegay in dawladda dimuqraadiga federaalka Itoobiya isrooyinkii la soo dhaafay hindistay ficilna u rogtay jihooyin iyo siyaasadaha horumarka oo halbeegoogu yahay in shacabka looga faa'iideeyo taasoo dawladdu ka soo hoysay natiijooyin lagu diirsado oo laga xusi karo jadwalkii wajiga koowaad ee qorshaha kobaca iyo isbedelka oo si lebil leh looga faraxashay sidoo kalena qorshaha wajiga labaad shacabka dalka lagala tashaday lagana soo dhambalay qorshihii hore khibradihii oo wanaagsanaa loona tababulshaysanayo in la sii amba qaado kobaca dhaqaale ee dunida ka yaabiya 12 sano la soo dhaafay Dr. Mulaatu Tashome madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya ayaa sheegay in fogeyn xilligii saboolnimada laga dhigi lahaa taariikh haddii qoomiyadaha iyo shucuubaha Itoobiya iska sii kaashadaan xoojinta midnimada iyo iska taageersiga lagu wado gediga dib u curashada oo looga faa'iideysto danta guud Dr. Mulaatu Tashome madaxweynaha dalka Itoobiya mar uu ka hadlayay dhibaatadii Elnino ay sababtay ayaa waxa uu sheegay in bartamihii kal hore laga soo bilaabo ay goobo kamid ah dalka Itoobiya gaar ahaan deegaanka Soomaalida Itoobiya ay ka dhacday roob yaraani taasoo saameyn ku yeelatay muwaadiniinta dalka balse waxa uu xuseyn kastoo roob yaraantaasi waqtiyada qaarkood ay goobaha qaarkood oo deegaanka Soomaalida kamid ay ku rabtay saameyn in haddana dadaal xooggan loo galay የዝናብ መቆራረጡም ለተወሰኑ ጊዜያት በተወሰኑ የክልሉ አካባቢዎች አሉታዊ ተጽዕኖ ሊያሳርፍ ቢችልም በመውሰድ ላይ ይገኛል inkastoo roob yaraantu waqtiyada qaarkood ay goobaha qaarkood oo deegaanka kamid ah ay ku rabtay saameyn haddana dadaalkan kala go'alayn iyo gargaarka ay wadaan dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya iyo dawladda federaalku waxay keentay inaan dhibaatadeena si awoodeena ku jaango'an aan u furdamino sidaa darteed dawladdu waxay gaarsiisay goobahaas gurmad degdeg ah oo raashinka dadka daaqa xoolaha biyaha dawooyinka caafimaadka taasoo lagu sameeyay bixiyay dadka iyo dunyada waana talaabo dhiirigelin leh oo dawladdu qaaday waana la sii wadayaa gargaarka iyo dabagalka ilaa dhibaatada xal looga helayo iyadoo taasi ay sidaas tahay haddii ayna soo food saarto Elnino iyo roob yaraan ka xoogan waxaan iska caabin karnaa inaan xoojino ka faa'iideysiga barnaamijka waraabka iyo dooxooyinka iyo inaan goobaha xool dhaqatada barno kaydinta biyaha oo aan dadaal xoogan ka galno Dr. Mulaatu Tashome madaxweynaha dalka mar uu ka hadlayay booqashada uu ku tagay gobolka Shabeelle ayaa waxa uu sheegay inuu ku soo arkay horumar ballaaran oo ku teedsan webiga Shabeelle ትናንትና በጎዴ የሸበሌን ወንዝ ተከትሎ በመስኖ ልማት እየተሰራ ያለውን ስራዎች ምን ያህል ለልማት ቆርጠው እንደተነሱ ነው የሚያሳየው
waxaan booqannay oo aan soo aragnay horumarka ka socda webiga Shabeelle. Shacabku waxay bilaabeen inay beertaan wax soo saar tayo leh oo iyaga iyo sayladaha caalamkaba ka gadmi kara, iyagoo ka faa'iideysanaya hannaanka casriga ee falashada beeraha, adeegsanayana qalabka beeraha oo casriga. Shaqooyinkani maadaama yihiin kuwo bilow ah, waa in la dhiirigeliyo, gaar ahaan hawsha horumarka waxa ay sabaabulay madaxweynayaashii hore ee deegaanka oo ahaa saaxiibaday, oo ay ku jiraan kuwo iyagoo Itoobiya ka wakiila danjirayaal soo noqday oo u jeestay dhanka horumarka, taasoo ina tusinaysa sida shacabka dalkeenu ay horumarka ugu jeesteen. Dr. Malaatu Tashame, madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya, ayaa xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee xisbigaba ka amaanay go'aanka ay ku qaateen in haweenka si baaxad leh oo tiro badan uga qayb galiyaan dhaqaalaha iyo siyaasadda, taasoo uu sheegay madaxweynuhu inay tusaale iyo ku dayashaba u tahay Itoobiya inteeda kale, wuxuuna haweenka ku booriyay inay horumarka si ka xoog badan ragga uga qayb qaataan. madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya, madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar, oo kulankan khudbad ka jeediyay, waxa uu sheegay in deegaanka Soomaalidu kadib markuu ka soo gudbay cadaadiskii ay dowladihii hore bideen ayaa isbedelkii ka curtay Itoobiya waxa ka hor istaagay inay ka faa'iideystaan shacabka deegaanku, kooxihii nabadiidka ahaa iyo weliba xagjirayaashii iyo hogaamintii dulsaarka iyo fadhiidka ahayd oo ka hor istaagay shacabku inay ka faa'iideystaan horumarka iyo dimuqraadiyadda, waxayna shacabka deegaanka u geysteen, ayuu yidhi madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar, xasuuq iyo tacadiyo badan oo ay ka mid yihiin kufsiga gabdhaha, duminta iyo qarxinta dugsiyada waxbarashada iyo xarumaha caafimaadka, taasoo deegaanka u horseeday amni xumo hor leh. Ra'iisul wasaarihii hore dalka hogaamiye aragtida dheer mudane Mela Zenawi oo ka damqaday gumaadkii shacabka lagu hayay iyo dhibaatooyinkii horumar la'aanta ee ka jira deegaanka, ayaa xilligii uu hindisayay qorshaha amniga iyo weliba horumarka iyo la dagaalanka argagixisada ayaa haalhays uu xilligaas soo qaatay, isagoo la hadlayay ciidanka qaranka iyo shacabka deegaanka. waxaa haalhayskaas ku soo halqabsaday madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya, madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar. haalhayskaas oo ahaa የሶማሌ ክልል ጉዳይ በቅርቡ arrinta deegaanka Soomaalida dhawaan ayaa laga faraxlan doonaa. marka la soo gabagabay waxaa la qori buu ka hadlaya sida loo tababaro ciidamada gaashaandhigga adduunka si ay iskaga caabiyaan weerarada budhcadda ee ku dhufo ka dhaqaaqa, laakiin idinka guushiina ma aha mid lagu dhaafi doono, way noqonaysaa. waan hubaa dadaala dowladda iyo shacabkuba way idin garab taagan yihiin. madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar ayaa xuseen hadalkii hogaamiyihii aragtida dheer Mela Zenawi sideedii uga hirgelay deegaanka kadib markii shacabka deegaanka, dowladda deegaanka iyo dowladda federaalka oo si buuxda isku kaashanaya ay ka celibtireen deegaanka nabadiidkii, xaqiijiyana horumar iyo nabadgelyo la isku halayn karo, iyadoo mar kale madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar uu ku soo halqabsaday odhahdii ra'iisul wasaare Haile Mariam Desalegn, taasoo ahayd በሶማሌ ክልል arrintii nabadiidka oobo ee deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaa si buuxda u soo gabagabeeyay shacabka deegaanka, dowladda federaalka iyo ciidanka qaranka oo gacmaha haysta. dhibaatadii amni darrada ee deegaanka waa la soo khatimay. dowladda iyo shacabka oo iskaashanaya waxay ajenda ka dhigteen horumar oo kaliya. sidaa darteed deegaanka waqti xaadirkan waxaa ka jira goob kasta amni lagu seexdo, shacabkuna iyagoo nabad qabaya guryahooda ka baxaan, iyagoo nabad qabayayna guryahooda ku soo laabtaan. ajendaheennuna waxa uu yahay cadowgeennu waa saboolnimo, si aan ugu guulaysanana waa inaan horumarka ka shaqaynaa. madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar maruu ka hadlayay guulaha ku yimid amni ahaanshaha deegaanka ayaa waxa uu xusay in dugsiyada waxbarashada oo xilligii dargeega ka yaraa 30 in waqti xaadirkan ay ka badan yihiin 1910 oo gaar ahaan kuwa ABE-ga loo yaqaano ee loogu talagalay xoolo dhaqatada, halka dugsiyada caadiga ah iyo kuwa sarana ay ka badan yihiin 1400 oo ay ku jiraan 13 kuliyadood, hal jaamacad iyo weliba jaamacadda Qabri Dahar oo dhawaan la dhagax dhigay, taasoo guud ahaan ka dhigaysa tirada xarumaha waxbarashada deegaanka ka jirta 3467 goobood oo subax kastaba arday wax ka bartaan. madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar maruu ka hadlayay dhanka caafimaadka waxa uu sheegay in rugaha caafimaadku aan gaarin 20 iyo xilligii dargiga in waqti xaadirkan ay ka badan yihiin 1040, halka 9 gobolna ay ka jiraan 9 cusbitaal oo waqti xaadirkan shaqeeya iyo weliba cusbitaal rifaraala oo u adeegi kara bulsho badan, weliba 48 kooxaha caafimaadka wareega oo loogu talagalay bulshada dhexdooda dhaqatada. maruu ka hadlayay dhanka biyaha ayaa waxa uu sheegay madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar in daboolka biyaha laga qaaday 47 lana gaarsiiyay 85%, isla markaana 5 sano la soo dhaafay la qoday 381 ceel oo ah kuwa dhaadheer, qaarkoodna laga qoday dhulka hoostiisa 560 mitir in ka badan. sidoo kalena la hirgeliyay 14 mashruuc oo biyo gelin oo ku jiro mashruuca biyo gelinta magaalada Jijjiga 34 hafardhaam iyo weliba 1300 oo ceel gacmeed biyaha iyo weliba in ka badan 10,000 oo mooteer biyaha oo loogu talagalay shacabka degan webiga Jiinka oo iyagu ku waraabsada beerahooda.
madaxweyne cabdi maxamed cumar waxa uu intaa ku daray 5 sano la soo dhaafay deegaanka Soomaalida lagu soo kordhiyay qaab dhismeedaan hore uga jirin oo ay ka mid yihiin laamaha dawladda oo ay ka mid yihiin wakaaladaha iyo shirkadaha horumarka biyaha iyo daraasaadka wadooyinka midhaha iyo abuurka iyo shirkadaha yar yar oo iyagu guud ahaan qaab dhismeedka dawliga wax badan ku soo kordhiyay gaar ahaan dhanka horumarka biyaha wadooyinka iyo waliba shaqo abuurka intaas ka dibaya madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne cabdi maxamed cumar wuxuu madaxweynaha